Kylian Mbappe ayaa xalay u muuqday habeen uu ilaawi doonin kadib markii kooxdiisa Real Madrid xaaqeen Barcelona oo ugu adkaatay 4-0 kulankiisii ugu horeeyay ee Il Clasico. Carlo Ancelotti kooxdiisa waxay kulanka ku soo gashay iyagoo ku jira waqti dheer oo aan laga badin horyaalka La Liga oo hal kulan ka hooseeya rikoodhka Barcelona, balse waxa ay ku dhaceen kooxda Blaugrana oo si xoogan u diyaarsan oo difaac wanaagsan leh isla markaana weerar ahaan halis weyn leh. Goolasha waxaa u saxiixay Lamine Yamal, Rafinha iyo 2 gool oo uu dhaliyay Roberto Lewandowski oo sabab u ahaa guuldarro xanuun leh oo gaaray kooxdii koobka difaacanaysay, taas oo kalsooni siisay mashruuca cusub ee Catalonia oo uu hogaaminayo Hansi Flick. Tababaraha reer Jarmal oo xagaaga loogu dhiibay jagada Barcelona si uu u bedelo halyeyga kooxda ee Xavi, wuxuu caan ku yahay habka weerarka ah ee uu u ciyaarsiiyo kooxdiisa, waxaana waagii uu joogay Bundesliga ee Bayern Munich uu ku guulaystay in uu ka faa'iidaysto hal abuurkan oo kale. Barcelona waxay awood u leedahay in ay habkan ka faa'iidaysato iyadoo ay xoojinayaan difaac adag, maadaama marar badan ay si wacan u qabteen weeraryahanada kooxda Madrid oo khaladaad badan ka galay xariiqda dambe ee offside-ka. Mbappe wuxuu 2 jeer kubadda ku dhaliyay shabaqa Barcelona, balse 2dii jeer ee uu sidaas sameeyay waxaa lagu helay inuu offside ku jiray. Xiddiga reer Faransiis waxaa sidoo kale lagu helay goobo kale oo badan oo uu ka soo tallaabay difaaca ugu dambeeya markii uu sugayay baasyo loo dhiibay. Isagu keligii ma ahayn, Vinicius Junior oo midkii toddobaadkan 3 lay dhaliyay si uu u caawiyo Real Madrid inay ka soo kabsato 2-0 oo ay ugu hormartay Borussia Dortmund, ayaa xalay u muuqday ciyaartii ugu xumayd ee uu ku jiro. Kooxda Carlo Ancelotti waxaa ka maqnaa ciyaaryahanka firfircoon ee Rodrigo oo dhaawac ku maqnaa, waxaana loo baahday ka maqnaanshihiisa iyagoo garoonka ka raadinayay dhiirigelin markii ciyaartu ay u socotay si aan fiicnayn. Qaybtii hore waxa ay ahayd mid isku dheelitiran, iyadoo Madrid ay ku bilaabatay si wanaagsan iyada oo ka awood badan kooxda Barca, ka hor intii aysan Barcelona kor u qaadin kalsoonida oo ay bilaabin inay sameeyaan ciyaar dhisme qurux badan. Barcelona ayaa ku hormartay markii uu Roberto Lewandowski dhaliyay goolkii koowaad ee ciyaarta, wuxuuna sameeyay kubad indhaha laga qaaday oo u gudubtay goolka goolhayaha Andre Lonin. Wuxuu mar labaad u qaaday kooxdiisa gool labaad kadib markii uu madax cajiib ah ka dhaliyay meel 6 mitir u jirta isagoo helay kubad uu u dhiibay difaaca Alejandro Balde. Lewandowski ayaa markii dambe heli lahaa fursad uu 3 lay ku dhaliyo, laakiin wuu khasaariyey boos wanaagsan oo uu kubadda ka helay. Wax kastoo rajo ah oo kooxda Madrid ay ka qabtay inay ciyaarta ku soo laabato ayaa laga quustay. Markii daqiiqado yar ay ciyaarta ka dhiman tahay, ayaa Yamal kubad lugtiisa midig kaga dhaliyay xagga sare ee shabaqa. Sidaas ayuu Yamal oo jira 17 sano waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu da'da yar ee taariikhda Il Clasico gool dhaliya, isagoo jebiyey rikoodh uu hayay Ansu Fati. 7 daqiiqo kadib waxaa soo raacay xiddigii hore ee Leeds, Rafinha, oo jirdil ku sameeyay Real Madrid kadib markii uu si jilicsan ugu qaaday Lonin oo garoonka ku ordayay. Guushaan waxa ay qayb ka ahayd 7 cajiib ah oo ay qaateen Flick iyo kooxdiisa Barcelona, kuwaas oo goolal 8 ah ku xaaqay kooxaha Bayern iyo Real waqti kooban gudihiisa. Runtiina, Barcelona waxay dhaliyeen ugu yaraan 3 gool 7dii kulan ee ugu dambeeyay, 6 ka mid ahna 8dii kulan ugu dambeysay. Hadda waxay 6 dhibcood ka sareeyaan horyaalka La Liga, iyagoo fariin u diraya kooxaha kale ee Isbaaniya iyo qaaradda Yurub.